Sii xoogaysanaya wararka sheegaya in duqeymaha culus ee Iran ay ku garaacayso caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv lagu dilay ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu. 24-kii saac ee la soo dhaafay ayaa warar si weyn u qabsadeen baraha bulshada, sidoo kalena warbaahinta gudaha ee dowladda Iran ayaa si weyn u tabanaysa in Netanyahu laga takhalusay. Tuhunku wuxuu cirka isku sii shareeray kadib markii muuqaal lagu baahiyay barta X oo hore Twitter loo oran jiray uu leeyahay Netanyahu, kaas oo kula hadlayo bulshadiisa. Waxaana muuqaalkan uu abuuray dood xooggan oo la xiriirta in uu ka mid yahay laguna farsameeyay aaladda garaadka macmalka ee AI-ga loo yaqaano, taas oo ay ugu wacan tahay in mararka qaarkood uu 6 farood yeelanayo, sidoo kalena ay jiraan astaamo muujinaya inuusan ahayn muuqaal caadi looga duubay, hase yeeshee aaladda garaadka macmalka ee AI-ga loo yaqaano lagu farsameeyay. Su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ayaa haddii Netanyahu uu badqabo, maxaa keenay in muuqaal lagu soo farsameeyay aaladda garaadka macmalka ee AI-ga uu kula hadlo bulshada, waxayna warbaahinta gudaha ee Iran si weyn dhankeeda ugu doodaysaa in Netanyahu laga takhalusay weeraradii cuslaa ee lagu garaacay caasimadda Tel Aviv, si gooni ah gantaal Tehran ay la heshay xafiiskiisa. Dhinaca kale, saacadihii la soo dhaafay dowladda Iran ayaa waxa ay ku dhawaaqday arrin la yaab leh, taa oo ku aadan in Mareykanka iyo Israa'iil ay weeraro culus ka fuliyeen dalalka Khaliijka, isla markaana ay beegsi ku hayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka Bariga Dhexe, iyagoo adeegsanaya xirfado ay iskaga dhigayaan in duqeymaha ay ka imaanayaan dhinaca Iran. Militariga dowladda Iran ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay isticmaalayaan diyaarado loo ekaysiiyay droniska Iran ay weerar ka fuliyeen dalalka Khaliijka, si Tehran looga eedeeyo in weeraradaas ay ka dambeyso. Waxa uuna hadalkan imaanayaa xilli uu taagan yahay tuhun xooggan oo ku aadan in gacan saddexaad ay beegsanayso kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka Khaliijka.